daacadnimo waxa lagu qeexaa qumanaanta iyo cadaaladda. waxaa laga yaabaa inay xigashooyinkani kugu dhiirigeliyaan inaad ahaato shakhsi daacad u ah dadka kale, laakiin ugu muhiimsan naftaada inaad u noqoto. daacadnimo waxay badbaadisaa waqtigaaga mar walba. daacadnimo waa sida ugu dhaqsasaha badan ee looga hortago khaladaadka inuu uruga guuldaro. daacadnimo waa hadiyad aad u qaali ah, ha ka filayn dadka kaa jaban. runta ugu weyn waa daacadnimo, beenta ugu weynina waa daacad daro. noqo qof daacad ah oo noloshaada waxay ku abuurtaa awood wanaagsan. daacadnimadu waxaa laga yaabaa inaysan ku yeelin saaxiibo badan, laakiin waxay had iyo goor kuu noqon doontaa kuwii saxda ahaa. daacadnimadu waa cutubka koowaad ee buugga xigmadda. daacadnimo ku hadal oo daacadnimo samee. daacadnimadu waa tan ugu wanaagsan siyaasadda. daacadnimadu waxay leedahay awood oo ay dad aad u yara xamili karaan. dadka oo dhan, dalka oo dhan waxay u gaajaysan yihiin daacadnimo iyo faham guud. ka fogow been sheegidda maadaama ay waxyeelayso caqiidadaada. ogaada in dadka daacadda ah ay qarka u saaran yihiin sharaf, halka beenta ay qarka u saaran yihiin burburka. halka ujeedada warkaana uu yahayna ay tahay inaad daacad u noqoto naftaada iyo kuwa kale. waa walaalkiina Cabdallah Ilays, sidaas iyo wasalaamu calaykum.